waxaa la soo warinayaa in la dilay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo uu muddo khilaaf kala dhaxeeyay hogaamiyaha wajiyada badan ee Jubbaland Axmed Madoobe siday sheegeen ehelka Janan waxaa dilka Janan iska kaashaday wasiirka gaashaandhigga dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo isku xisaab ah lana wada og yahay inuu ka dhaxeeyo xiriir qoto dheer walow aan wali si rasmi ah loo xaqiijin geerida Janan haddana muddo asbuuc ah ayaa la leeyahay nolol iyo geeri midka uu ku sugan yahay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland waa kan codka mid ka mid ah ugaasyada Cabdirashiid Janan oo ka hadlay dilka Janan Allahu rahman Cabdirashiid Janan waa dhintay Axmed Madoobe iyo maxaan ku Aadan Barre Ducaale yaa dilay miniga dambeeyay ma weydiinaysa Cabdirashiid Janan dambalarki ma hayo Cabdirashiid Janan ayaa markii ugu dambeysay ku sugnaa hotel ku yaal magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waana sababta keentay tuhunka ah in la dilay dowladda Kenya ayaa muddo dheer siin dhalaan ah u taageeraysay hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo xukunka Jubbaland muddo dheer jooga waxaana ay dowladda Kenya Axmed Madoobe la leedahay xiriir fog iyadoo mararka qaar u adeegsata dowladda federaalka Soomaaliya waxaana magaalada Kismaayo u oodan Axmed Madoobe ku ilaaliya ciidan Kenyan ah sidoo kale Cabdullaahi Kulane oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday sargaal sare oo ka tirsan hay'adda NISA ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay maqnaanshaha Cabdirashiid Janan oo aan lahayn nolol iyo geeri midka uu ku sugan yahay sidoo kale dowladda Soomaaliya oo mas'uul ka ah qof walba oo Soomaaliyeed ayaan wali ka hadlin xaalka Janan waxaana ay dowladda Soomaaliya ku tahay mas'uuliyad darro weyn inay ka aamusto maqnaanshaha muwaadinkan Soomaaliyeed ee lagu waayay wadanka Kenya sidoo kale inay dowladda Kenya disho muwaadin Soomaaliyeed iyadoo fulinaysa qorshaha Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka Jubbaland waxay dhaawac ku tahay dowladnimada Soomaaliya sidoo kale Cabdirashiid Janan oo muddo dheer ka mid ahaa xubnihii sida weyn ula soo shaqeeyay hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayay isku dhaceen xilligii dowladii Farmaajo markaas oo Cabdirashiid Janan hubiyo ciidan kala goostay maamulka Jubbaland isagoo xilligaas heshiis la galay dowladii Farmaajo oo ay Axmed Madoobe si weyn isugu hayeen arrimaha gobolka Gedo sidoo kale Janan oo ah nin si weyn looga yaqaan Jubbaland iyo gobolka Gedo ayaa waayadii dambe ka mid ahaa siyaasiyiin raadinayay inay Axmed Madoobe xukunka dhaafiyaan waana midda keentay ayaa la leeyahay inuu Janan noqdo bartilmaameedka Axmed Madoobe oo xoog iyo xeelad ku jooga xukunka Jubbaland sidoo kale Janan ayaa ah shakhsi uu si weyn uga cabsado Axmed Madoobe maadaama uu yahay halkan nin ee sida wacan u garanaya ugaarsiga siyaasadeed ee Axmed Madoobe daawade aragtidaada nala wadaag sidee u aragtaa maqnaanshaha Cabdirashiid Janan